gudoomiyaha isbahaysiga nabadda Soomaaliyeed Cabdullaahi Sheekh Xasan oo maanta shir jiraa'id ku qabtay gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyay khilaafka siyaasadeed ee xilligan u dhaxeeya xubnaha xildhibaanada golaha baarlamaanka ku meel gaarka Soomaaliya waxaana gudoomiyaha isbahaysiga nabadda Soomaaliyeed uu sheegay in khilaafka u dhaxeeya xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya uu ka dambeeyay kadib markii uu soo dhawaaday xilliga jiritaanka xildhibaanada baarlamaanka waxaana uu ugu baaqay xildhibaanada Soomaaliyeed in ay ka waantoobaan khilaaf siyaasadeed oo xilligan soo kala dhaxgalo oo ku tilmaamay in uu burburin karo dhammaan howlaha dawladda Soomaaliya gudoomiyaha Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya looga baahan yahay in ay isu tanaasulaan isla markaana ay muujiyaan dawladnimo maadaama loo doortay xildhibaano baarlamaanka Soomaaliyeed matala khilaafka u dhaxeeya xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudoomiyaha isbahaysiga nabadda Soomaaliyeed Cabdullaahi Sheekh Xasan waxa uu ku macneeyay mid aan dhamaanin laakiin waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ka fakiraan sidii looga gudbi lahaa khilaaf soo laalaabto oo u dhaxeeya xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta dawladda waxaana uu xasuusiyay khilaafyadii kala duwanaa ee xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta dawladda ku dhaxmaray intii ay jirtay dawladda Soomaaliya waxaana uu ugu baaqay xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta ugu sarreeyay dawladda ku meel gaarka Soomaaliya in ay ka shaqeeyaan danta ummadda Soomaaliyeed isla markaana la diyaariyo doorashada madaxda dawladda Soomaaliya marka uu dhamaado halka sano ee loogu daray mas'uuliyiinta iyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya marka hore waa ka xunnahay in mar walba mas'uuliyiinta Soomaalidu iska qabsadaan oo ay u muuqdaan dad aan maaragtay xil ka sahayn waayo mar walba dadka waxa laga fiiriyaa dadka leaderskooda ah ayaa laga cabiraa marka waxaan ka xumahay mar walba in mas'uuliyiinta dawladdu ay u muuqdaan kuwa aan danaha guud ka fikirin tooda isku qabsada khilaafkaas oo hadda baarlamaanka Soomaaliya ka dhex muuqda waxaan wada ognahay guud ahaan dawladda Soomaaliya waqtigeedu wuxuu ku ogyahay wuxuu ku ekaaba Agosto ku ekaaba soo dhaafay 2011 waxa la siiyay sanad hay'adaha dawladda oo la yiraahdo Museveni year sanadkii Museveni sanad la yiraahdo ku shaqeynayeen marka sanadkoodaas hadda gabagabada ha isu diyaariyaan inay ku wareejiyaan si nabada dawladda ayaga ku xigta haday ayagu tartamayaan dabcan Soomaali muwaadiniin way xaq bay u leeyihiin laakiin mar walba oo ay soo dhawaato xilligoodu isqabqabsigooda waxaan u aragnaa masiibo hoggaanka dalka haysata marka waqtigoodu mar hore u dhamaaday mar labaad la cusboonaysiiyay yaan lagu fikirin ama cidna yaanay ku fikirin ama xubin baarlamaan ha noqoto ama gudoonka baarlamaanka ha noqoto ama madaxweynaha ha noqoto ama wasiirada diyaasbarada ha noqoto no more 7 years 7 sano ay jira oo package-kaas isku xiran yahay soo rabaha loo kala dhaxlo ma jiri cid diyaar u ahna ma jirto sanadkii Museveni bilaa ka haray marka bilahaasi xukunka uu wareeji lahaayeen inaan isku khilaafin sidoo kale gudoomiyaha isbahaysiga nabadda Soomaaliyeed Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa waxa uu ka warbixiyay safar oo maanta ugu ambabaxay magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti halkaasi oo sheegay in uu kaga qayb galayo shir ay ka qayb galayaan mas'uuliyiinta xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya kaasi oo sheegay in looga hadli doono aayaha dalka Soomaaliya baxitaanka waftiga baxaya xisbiga ama isbahaysiga oo ku socda Djibouti oo u socda shir halka ka dhacaya 7 bisha ilaa iyo 9 ka socon doona intaas kadib waa iska caadi wadanka waxa ogtay in xisbiya ka jiraan waayadan shirkaas waxa iskugu imaan doona axsaabta Soomaalida oo siyaasadda waxa ogtay in marxalad intiqaaliya lagu jiro muddo dheer oo in laga baxal rabo sidii marka 4.5 loo gudbi lahaa ay axsaabtu uga qayb qaadan lahayd ama uga qayb qaadan karto next government-ka la dhisayo ayuu ku saabsan yahay shirku in looga hadlo iyo laftirkooda axsaabtu sida ay ugu diyaar garoobi lahaayeen wadanka ku meel gaarka markuu ka baxo وصلنا شقي لهايين gudiyada doorashooyinka ee sida aan ognahay mar dhow la ansixin doona bal magacaabi doono khilaafka siyaasadeed ee muddooyinkan soo kala dhaxgalay xildhibaanada golaha baarlamaanka ku meel gaarka Soomaaliya ayaa waxa uu yahay mid muddooyinkii dambe laga hadlayay gudaha dalka Soomaaliya waxaana la ogeyn ilaa iminka halka uu saldhigan doono khilaafkan oo muddooyinkii la soo dhaafayba ka dhex jiray xildhibaanada baarlamaanka ku meel gaarka Soomaaliya
axmed nuur cali maxamed universal TV muqdisho.